maanta wadaadadaad aragtay tiradoodu intay doonto ha ahaato cilmigu doono ha yeesho sababteeda Cumar Xuseen baa lahaa waxaan qabaa Cumar Xuseen wax allayaal waxa dad diin fidinaya maanta ya ajirkoodii wax ku leeyahay ilaahay jannatu firdawsaha geeyo waxa maanta xabaalaha haleeya ee duleedka bari ee Hargeysa asbalaaran loogu sameeyay Sheekh Cumar Xuseen aw jaamac macallin Ceesh oo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa askan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan culimo iyo dadweyne kale ugu horeyn waxa halkaasi dambaal tacsiya ka diray culimadii aqoonyahankii oo macallinka u soo ahaa marxuum macallin Ceesh Cumar Xuseen Axmed oo Ceesh loo oran jiray oo ahaa nin ashariya oo dadkii dhifta ahaa ee ummadina ay lahayd ka mid ahaa dhaqdhaqaaqa islaamiga ah ee waxa wadaad aragteen ama gadh ha yeesho ama yaanu yeelanin ama waxa akhriya ama yaanu wax akhriyin laga bilaabo 1969 ilaa 1975 waninkii mas'uulka ka ah waxaa soo abaalay isaga wadaad maanta sheegan kara abaalka maanta wadaadadaad aragtay tiradoodu intay doonto ha ahaato cilmigu doono ha yeesho sababteeda Cumar Xuseen baa lahaa walaalkeen ilaahay ha u naxariisto ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatul firdaws ilaahay ha geeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala maarif ha u dambi dhaafo annaga wuxuu ahaa sheekhayagii waxdatu shabaab al-islaam ayuu noo dhigayay annagoo yaryar buu noo dhigayay oo waa ninkii salaada oo sheekhii salaadana baray waa sheekhayagii intaasoo sannadood buu noo dhigayay oo noo madax ahaa oo halkaa noogu dhigayay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun walaalkeen samiriyay maan Allah inaga siiyo ilaahay tarakadii uu ka tagay ha barakeeyo isagana ilaahay qabriga ha u nuuro dadka wax baray runtii aad iyo aad bay u farabadan yihiin anigu koobaan ka ahay anigoo yaroo 15 jira ayaan sheekho markaa macallin oo iskuulada wax ka dhiga ururkii loo oran jiray waxdad shabaab islaami isagoo aasaasay ayaan markaa anigu imid wuxuu dhigi jiray markaas uu noo bilaabay tafsiirka quraanka wuxuu noo sheegay isaguna niman sheekhiisa sheeginay sheekh malaha baa la yiraahdaa isaguna wuxuu barigaan ugu oran jiray ninkii quraanka ee bare wuxuu ahaa Sheekh Ahmed Khaliif nin la oran jiray oo jaamaca Harulaha u dhow marka tafsiirka barigii bilaabay ka marin jiray nin ogaadeen uu kaasina ahaa taas isku maray halka markay noqotay dhalinyaradii maxaan ku raahdaa markii dambe la kala eriyay si aad barbarkay uu xiray barkay uu masaafriyay barkay midba meel buu ka tuuray anigu qoladii xamar lagu xiray baan 2 sano gaar shir ku jiray bas yaani diinta ilaahay iyo maxaan ku shuuciyadii oo ka hormadiyo oo daaladiida hayd oo gurwadaasha iyo wixii ay lahaayeen diin iyo ilaahba ma jiray ee markaa ay sameeyeen tiibana lagu xiray markii dambe soo baxnayna meeshii albaabada loo xiray baa ya meeshii intaanaan annagana la xirin baa albaabada loo xiray markii Cumar iyo la bedelay annaguna aanu xamar tagnay ayaa intaan xamar ku maqnayn meeshii la xiray dabbaaba la qabasay markii dambana dawladii dab ay qabasiisay waxaan hubaa runtii ajarka iyo wuxuu ka tagay ilaahay nabigeenu kaleey salaatu wasalaam haduu qof dhinto ya amalka dadkii ugu yeeray hanuunka waxa la yaalo waxay sameeyaan isagoo ilaahay waxba ka dhimin isaga ayuu qoraa waxaan qabaa Cumar Xuseen waxa la yaalo waxa dad diin fidinaya maanta ya ajirkoodii wax ku leeyahay ilaahay jannatu firdawsaha geeyo waxaanu leenahay ilaahay isaga raxmaan ah qof kastaaba uu dhimanaya laakiin ilaahay jannadii ha geeyo ka tacsiyeedina horta waxaad ku garanaysaan anagu waxaan oran jiray berigii uu ardayda aan u ahayn sheekh waxaan oran jiray sheekh Cumar al-Ashari baan oran jiray waxa ahaa ragii geeska Afrika waxa ninkii ugu horeeyay ee diinta islaaxiya ayuu ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Xuseen Jaamac macallin Ceesh macallinkii weynaa Allah ha u naxariisto sakaraadka dhaafiye ilaahay su'aasha ha u dib yareeyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun
ilaahay u naxariisto. sheekh cumar xuseen aw jaamac macalin ceesh wuxuu dhashay 1938 isagoo ku dhashay deegaanka Meegaagta oo koonfur ka xigta Hargeysa. sheekhu waxa uu bilowgii waxbarashadiisa uu ku qaatay Hargeysa isagoo da'yar oo ku jira da'da tobnaadna waxa uu dhameeyay Qur'aanka Kariimka ah. intaasi kadib sheekhu wuxuu galay jaamacadda faca weyn ee Al-Azhar ee dalka Masar isagoo 16 jir ah. waxaanu ka qalin jabiyay sanadkii 1959 isagoo 22 jir ah. sheekhu waxa uu bartay culumta islaamka, luqadda carabiga iyo tafsiirka quraanka. 1969 waxa uu aasaasay xisbu waxdad shabaab al-islaam oo ka koobnaa 13 dhalinyaro ah. xisbigani waxa uu ka madax bannaanaa siyaasadda waxaanu ka shaqayn jiray baraarujinta bulshada iyo fahamsiinta diinta islaamka. sidoo kale waxa uu sheekh cumar uu maamulo ka soo noqday dugsiyadii Axmed Gurey iyo Maroodi Jeex. waxaa xusid mudan in magaca Maroodi Jeex uu isagu sabab u ahaa in la soo celiyo oo dugsiga loo bixiyo. sanadkii 1971 sheekha oo madax ka ahaa xisbul waxdad shabaabul islaam ayaa waxa uu dib u ballaarin ku sameeyay masjid jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa. sanadkii 1980 waxaa sheekha qaatay raabidatu caalam al-islaam oo ahaa ururkii islaamka ugu weynaa fadhigiisuna ahaa dalka Sacuudiga. ururku waxa uu sheekha u diray dalka Malawi oo waqtigaasi 40% dadka ku nool ay islaam ahaayeen. sheekhu waxa uu halkaasi ka dhisay masaajid iyo iskuul uu dadka diinta ku bari jiray isagoo soo islaamiyay 100 qof. sheekhu intii uu ku sugnaa dalka Malawi waxa uu halkaasi kula kulmay sheekh Axmed Diidaad. 1990 sheekhu waxa uu soo galay dalka UK isagoo qayb ka noqday gudiyada samafalka. sidoo kale bulshada waxa uu bari jiray diinta isagoo dad badanna quraanka ku dabiibay. sagaashamaadkii waxay ka dambeeyay sheekhu waxa uu ku noolaa dalka Ingiriiska isagoo 2 bilood ee cimrigiisa ugu dambeeyayna la keenay magaalada Hargeysa isagoo ku jira xaalad caafimaad. bishii 9keeda 2021 oo ku beegneed xalay waxa uu sheekhu ku geeriyooday magaalada Hargeysa iyadoo maanta oo Jimco ahna lagu aasay xabaalaha halleeya ee duleedka Hargeysa. maxamed midq warsame, Ariel TV, Hargeysa.